محمد حسين عبد الله يكون رجل ذلك كينيا بروفيسور وحكي يقانون أما وحكي دقاي وحنا كباري فيروس مدشان إيو طبعا سنة ودنك قديس يدبتي سبا أدونكي ويابان يحي مصيبة أيا دعضي مصيبة دا وحكيني كورونا فيروس مصيبة دي أود بيسي نوعان أيا دعضي وحي حيد 1918 كون سكال بقول طواني ستيدي وحا سبانيش فلو وحود لي 50 مليون مدو إيغايا حدا سعوتا دباتا دعضي هدي دباتا دعضي waxaan ogsoonahay Soomaalida inay meel adduunka ka joogaan dadkii Soomaali wax u bartay waa inaga adduunka kama marin Soomaalida adduunka ku nool hadda waxa lagu qiyaasaa 40 milyan meel baad joogtaan farinteedu waxa weeyaan viruskan daawo ma laha viruskan ka hortag ma laha viruskan talaal ma laha viruskan habka lagaga badbaadi kara waa in ilaahay la tala saarto ee laga xararo guriyaha laga galo afka laga xirto gacmaha la iska dhaqo ummadii aan lagu soo bixin nin walba gurigiisa uu ku jiro ilaa isaga uu ka baganayo adduunkii uu yaabay the scientists dhakhaatiirtii dadkii pharmacistaha dadkii qalabka haystay lacagta haystay technology haystay way yaaban yihiin Chinese ka harbay kaga badbaadin in viruska markii uu bilaabday isla markiiba ay joojiyeen isu gooshinka baabuurta magaalo dadka inay isu tagaan dhulkiina meelihina la buufiya ilaa waqti intii way ku guuleysteen anagu haddaanu Soomaalina dad muslimiin baan nahay waxa jirta anaga aan isticmaalno anigu idin ku soo kordhin maayo wax cusub waa wax anaga aan hore u isticmaali jirnay waxaan ogsoonahay baaritaan badan adduunka waa ka dhacay oo ku saabsan malabka saafida ah viruska uu dila shaki kuma jiro liinta la miiray oo saafida ah viruska way dishaa sinjibiilka viruska uu dila waa baaritaan xabad sawdada viruska way dishaa toonta viruska way dishaa xamarta viruska way dishaa intaan haddii la isku geeyo shaki kuma jiro in viruskaas meel la saarayo laakiin waxaa ka horeysa in isticmaalka inta aan sheegay hore aan u isticmaali jirnay aan haddana sii badino oo aan sii xoojino mar difaaca jirka ayay xoojiyaan viruskana waa la yaqaanaa difaaca jirka ayuu baabi'iyaa ninkii ka badbaada maanta waxaa la ogsoon yahay in difaaciisa jirka uu aad u sareeyo anagoo ogsoon liinta iyo malabka iyo waxyaaba aad u dham inay gaas keenayaan ee dadka qaar gaas ku kacayo laakiin haddana waa lagama maarmaan isticmaalitaanka inta hadda aan soo sheegay adduunku uu ogsoon yahay in ay viruska dilaan xabad sawdada iyo malabka iyo liinta iyo sanjabiilka markii qofka uu cuno kuleelka jirkiisa korba u kaco qofka dhidid baa ka yimaado waxaa keenayo inay yihiin analgesics oo ah xanuun baabi'iyaal ama xibnaha ama dhabarka ama meel walba inay mataqaana u roon yihiin oo fiican yihiin marka intuusan viruskana soo gaarin intaas haddaan badsan oo aan isticmaalno aan waxaan idin dhihi lahaa waxaad hore u isticmaali jirteen aan idinku sii xoojina oo aan idin leeyahay inaad sii kordhisaan aad bay u wanaagsan tahay adduunku waxaa la sheegay in la isticmaali karo hydrochloroquine oo ah daawada malaariyada hydrochloroquine ma disho viruska laakiin waxay reebtaa virus inuu jirka ku sii fido in unugyada uu sii galgalo ayay ka reebtaa waxaa la sheegay in azithromycin la isticmaalo azithromycin waa antibiotic caadi ah oo antibacterial ah laakiin waxaan ogsoonahay asbuuca ugu horeeya markuu qofka virusku ku dhaco asbuuco kala intuusan qofka dilin ama qofka daciif uusan ka dhigin in bacteriana uu kusoo dhumanaya meesha oo infection asna uu keenayo viruskana sanbabada ayuu dilaya sanbabadii waa meesha laga neebsanayo qofka uu ku dhaco sanbabadu kaga dhaca marka uu sanbabada ku dhaco wuxuu u sii gudbaa kiliyaha beerka maskaxda caloosha shuban hataa uu keena intaas qofka difaaciisa jirka uu u sareeyo oo isticmaala intaan hadda sheegay fadlan isticmaala
intaan idin sheegay waa dhaqankeena waad ogsoontihiin please meel hadda mataqaanta loo carana ma jirto dunida koowaad ayay hadda gacanta ka tagtay markii la helo daawadiisa waa goorma waa maray xeeri fadhaa kala dhaceen markan gurigiina ku xirnaada hawsa gooshina meela aad tagtaan ayna jirin cadaanku aad buu u laayay kow horta dhulkii baa qabow fayraskana sidiisaba waaba taqaaniin in herga markuu idinku dhaco waa taqaaniin in wax kulo la isticmaalo qabowgii waxa isku soo yimaaday iyo viruskan oo aan la garanaynin meeluu ka yimaaday sababta u yimaaday waxa ilaahay uu gacanta ku sito cilmiga aanu leenahay PhD preventive medicine haddaan sito ma aha in isla markiiba wax soo saari karo waxay u baahan tahay maskax waxay u baahan tahay fikir laakiin maskaxda iyo fikirka waxa ka horeeya ka hortag iyo is ilaalin intii uu dilo annaga ilaahay nagama dhigo inta badbaado allah naga dhigo ilaahay aan ku xirnaano ilaahay aan ka baqno aan is afino viruskan aan ka dhuumanno intaan ka dhuuman karno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh